nin kasta oo shaki qabo waxaan halka uga baaqayaa shakiga ka bax waxaan ballan ilaahayga ah inaan hab furan oo daah furan oo cid walba arki karto oo hufan inaan ka shaqeyno mana aha waxaan hadda sheeganaynaa golayaashii deegaanka saan uga shaqeynaad markaanti ka tihiin dawladdan hadafkeedu ma aha hadda joogto inay soo noqoto iyadoo rabta inay dadkeeda u shaqeyso laakiin hadafka weyn waxa weeye in nidaamka dimuqraadiyadda uu taabagalo kaasa asala haddaan nidaamka uu hirgaloona doorataanna waa inii shaqaynaynaa horaan u yidhi haddaad qawateen waxqabadkeennana diyaar baan u nahay ku qancina codkiinna qof kasta oo siyaasadda danaynaya waxaa la rabaa codka shacabkiisa iyo dadkiisa inuu aamino shaqada aad qabanaysa waa shaqo bulshadu leedahay waxaad u baahan tahay in lagu yidhaahdo noo qabo authority baa u baahan tahay markaasaa wax qaban kartaa inta koox yar ku leedahay annagaa ku keensannay waxba ma qaban kartid magaalo kasta aan tago koox yar baa ii dudsan oo tiraahda annagaa waagiga ku geynay middii hore waa dhammaatay waxay ahaydba midda soo socota shacabkaa raba ama inay doortaan ama i diidaan koox dambe wakhtigeeda ma warrabay maba laga shaqayn karo runtii yaa abaalkaas laysu sheeganaayo dadka looguma shaqayn karo war haddaa shalay maxaad ii dhisaysa inaan dadka u shaqeeyo ma ahayd mise inaan adigu u shaqeeyo waa su'aal in la isweydiiyo u baahan hadday ulajeeddadu ahayd inaan dadka u shaqeeyo ila xisaabtan war dadkii ma shaqaynay dawladdaan wax ma qabatay aan in weydiiyo wax ma nii qabanay mise wax la'aan baa ahayn yaa wax waa qabannay soo maaha inaan wax qabannay waxaan ka garanayaa muuqaalka qarasay u egyihiin maalintii hore aad ahaydeen shirkii hore saa tihiin dadkii baaba xataa qurux badnaaday wax kale iska daaya marka dawladdatan siyaasado ay rabtay inay dadka ku hormarisay ka shaqaysaa mooyaane dad gaara inay wax u qabato qorshaheenna maba ahaba waxaa laga yaabaa markaan tartamaynay inaan isfahmi weynay annagu maba rabinba inaan koox wax u qabannaba waxaan rabnay inaan bulshada wax u qabanno haddana tii baan u soconnaa saaxiibbadayda weli taagan kooxaysiga bannaanka ha u soo baxaan oo ummadda ha la tartamaan oo cod ha weyddiistaan oo waxa ay qabanayaan marka dambe waa la xisaabtami doonaa baarlamaan keliya maaha shacab baa xisaabtamaya codkiinna maanta ku cilbax dadka aad dooranaysaan la xisaabtama